السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي كلن توناكسن مeel kasta aad dunida aad ka joogtaan ku soo dhowaada warbixinadii iyo wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha saaxiibayaal. halkan waxaa idin kala hadlaya saaxiibayaal waa yeelkii wehelka u bahday ee Bishaar Cabdi. ku soo dhowaada warbixinadii iyo ciyaaraha wararkii aan idinka haynay saaxiibayaal. haddii aad tahay saaxiib ku cusub barteenaan fadlan subscribe noo saar, leegta iyo sheertana nagu dhiirageli. waa ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga. ciyaartooyda Real Madrid ayaa isugu tegay guriga mid ka mid ah xidigihii wacdarada ka dhigay kulankii El Clasico oo 3-1 ay ku garaaceen kooxda Barcelona oo marti ugu ahayd Santiago Bernabeu, taas oo goolasha u kala dhaliyeen Karim Benzema iyo Valverde iyo laacibka reer Brazil Rodrigo. xidigaha khadka dhexe ee Luka Modric iyo Marco Asensio ayaa kula biiray laacibka lagu magacaabo Lucas Vázquez iyo David Alaba, xidiga iska xaadiriyay guriga xidigii ku suntanaa guusha ee Valverde oo xaflad u sameeyay ciyaartooyda kooxdiisa. saaxiibayaal, sawir laga soo qaaday ciyaartooyda Real Madrid oo ku sugan gudaha guriga Valverde oo dhoola cadeynaya isla markaana muujinaya sida ay guusha ugu faraxsan yihiin ayaa la soo dhigay barta Twitterka. hase yeeshee waxaa sawirkan ka maqnaa qaar ka mid ah ciyaartooyda kooxda oo loo malaynaya in ayna tegin guriga xidiga lagu magacaabo Valverde. saaxiibka guushan ee Real Madrid 3 dhibcood hoggaanka kaga qabatay Barcelona ayaa waxaa sidoo kale u sii waday rikoorkii guuldarada la'aanta ee xilli ciyaareedkan oo aan hal marna laga badin dhammaan tartamada, inkasta oo 2 ciyaarood oo midkood ay tahay horyaalka La Ligaha midna tahay Champions League ay galeen barbaro. kooxda Barcelona ayaa dhinaceeda ay guuldaradii ku soo kordhisay culayska badan. hase yeeshee tababare Xavi Hernandez waxaa iyadu oo toddobaadkii hore Barcelona iyo Jaba ay kula galeen garoonka Camp Nou ee kula galay Inter Milano ay haddana Real Madrid cusbo sii marisay nabradii sii buskoonayay ee kooxda Barcelona, maadaama aan ognahay kooxda Barcelona inay sanadkan soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u liita xagga Champions League, maadaama la filaya inay kulamada soo socda ama kulamada ka dhiman bisha intaysan dhammaan ay ka hari doonaan Champions League oo ah koox weyn aysan ka maqnaan. kooxdii ka maqnaatana ay tahay mahadho. waxay Real Madrid u ahayd horyaalka La Ligaha koox aan meel dhexaada, laakiin kooxda Barcelona oo madax u ahayd horyaalka La Ligaha hadda waxay u tahay mijo. marka saaxiibayaal, kulamadii ciyaaraha iyo wararkii laga diiwaangeliyay kulankii El Clasico haddaad ku sii darsanno laacibka lagu magacaabo kaloo saaxiib laga diiwaangeliyay kulankii El Clasico, laacibka khadka dhexe uga ciyaara kooxda Barcelona ee lagu magacaabo Sergio Busquets oo 34 jir ah ayaa tababare Xavi Hernandez u sheegay in kulanka Khamiista keedka kursiga la dhigi doono iyo kulamada ka dhiman Champions League iyo horyaalkaba, maadaama uu sameeyay khaladaad waaweyn. khaladaadkaasna aad uu u carooday tababaraha lagu magacaabay Xavi Hernandez. marka Sergio Busquets wuxuu wajahaya caqabado fara badan maadaama ay da'dii ka timid khabiirkii reer Spain. khadka dhexe burburiyihii wacdarada ka soo dhigay ama waqtiga iyo waayaha ku soo qaatay kooxda reer Catalonia ee Barcelona hadda waxa uu wajahayaa dhibaatooyin fara badan. ciidda iyo carada ayaa afka loo gelin doonaa maadaama shardi iyo uu Xavi Hernandez ku maray inuu kursiga keedka dhigi doono inta ka dhiman xilli ciyaareedkan. saaxiibayaal, wararkeennii ku saabsanaa kulanka El Clasico intaas ayay nooga agyihiin saaxiibayaal. waa ku mahadsantihiin saaxiib la jaanqaadkiina.